أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله، إلهي سبحانه وتعالى mahadleh markuu hore dad muslimiin naga dhigay, marka labaad waxaa mahadleh ilaahay subxaana wa tacaala nagu kulmiyey meel khayr qabta oo aan khayr iskugu sheegayno. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryay dhammaanteenba siduu halkaan noogu kulmiyey inuu ilaahay janno fardoos noogu waxaa mahadda kale leh walaalahe sheekh abuukar iyo sheekh cumarba iyo dhammaan reer rotterdam ood arkaysaan maanta jaceylkay u qabaan diintooda inay wax ka bartaan ay halkaan u yimaadeen. ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryay ayagana miisaanka xasanaadka alla u saaro. cid kastoo safar soo gashay ama gurigeedii adduunyadeedii ka soo tagtay ee maanta u timid inay culammada ay ka dhageystaan darsi ama diini ah oo diintooda ay bartaan, ilahay waxaan ka baryay tallaabo kasta ay soo qaadaanna ilaahay subxana wa tacaala tay kor u qaadaan ba ilaahay darajin ugu saa'idiyey, markay dhulka dhigaanna ilaahay inuu dembiga ugu qaado. xaqiiqatan mawduuca laga hadlaayo mawduuc sahlan maaha. alaa ina silcata allahi gaaliya. ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ugu qaalisan ee qofka muslimka ah oo doonaya waxay tahay inuu aakhiro liibaano. adduunyada sideedaba waa transiid ayaa lagu yahay waa laga tegayaa, laakiin halkaas ayaa loo socdaayo aakhira nolol waxaa la gelayaa aan dhammaanaynin. siduu ilaahay qur-aanka noogu sheegay, inta badan dadka aan caqliga lahayn oo adduunyada dhalaalkeeda ku kadsoomay, ilahay wuxuu leeyahay bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa. wuxuu leeyahay qofka aakhiradiisa fiiriya iyadaa baaqi naqanayso abadi ah, nolol abadi ah. aakhirana dadka laba qaybay naqanayaan keliya, qayb naar cadaab ilaahay geeya iyo qaar janno geeya. annaga maanta waxaan ka hadlaynaa sheekhana dictoorka uu ka hadlay waddadii jannada lagu tegi lahaa, janno ayaan ka hadlaynaa. marka waxa ugu wanaagsan laga hadlo qofkana waxaa weeye qofka in loo sheego noloshaan adduunyo marka uu ku tacbaano oo uu ku dadaalo halkuu u socdo, hadday janno tahay lagu sii sheego qofka moraalka ayaa u dhismaya. walidaalika annaga dadkeenan qarbeedka degan oo halkan ilaahay nagu imtixaanay inay ilaahay rasiqayna dhigo, annaga ma dooranin, ilaah baa noo dooray. haddana waxaan mar kasta u baahan nahay jannada in laga sheekeeyo. inta badan moraalka ayaa dadka ka dhinta qaarkood, xataa inay qaarkood ay ka aamineen ilaahay subxaana wa tacaala inuu dadka cadaaba leh keliya, khaasatan carruurta yaryar ee waddamadan ku hayno. waalidiinta waxaa la rabaa inay ka hadlaan ilaahay inuu ghafuuru raxiim yahay, inay baraan ay baran ilaahay inuu shadiiduciqaab yahay. maxaa yeelay ayaga mukallaf maaha, takliifma la saarin. markay qaan gaaraan ayaa cadaab iyo waxaas u bilaabanaya. marka cunug yar oo gabar yar oo xijaab qaadata inaad tidhaahdo haddaa xijaabka qaada weyso ilaah ku cadaabayo, oo markay iskoolka tagtana oo iskoolka gaalada ay tagtana la leeyahay ciise ayaa ku badbaadinayo, janno ku geynayo, waxaan malaynayaa halkaas tarbiyadeeda khalala carruurta ku dhacayso. saas daraaddeed aad baan ugu farxay markii la yidhi mawduuc jannaha laga hadlayaa. waxaan mar kasta dadka tifiyadan kaga baraarujiyaa carruurta yaryar hala bar ilaaha ku jeclaanaya. xijaabka gabar yahay adigoo da'yar 4 jir ah 5 jir ayaa xijaab kuu saaraya, waa inaad tidhaahda ilaah baa ku jeclaanayo ee ilaahay ku cadaabaya maaha. maxaa yeelay bii'adaan ku noolnahay xikmadda ku jirta waxay tahay inaan kula dhaqannaa tarbiyada wax kastoo carruurtan ilaalinayn. dadkeena waa weyn, dad waxaa jira raxmada ilaahay ka quustay. laa taqnatuu min raxmat illaahi. qofka inuu isdhiibo hadduu dembi yar ka dhaco u yidhaaho ilaahay aa ku cadaabayo, dembiga iskaaga sii soco, qofkaas waa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yidhi sifadaas waxaa iskale gaaladaa iskale. waman yaqnut min raxmat illaahi ila alqowm kaafiriinta ah, kaafiriinta ayaa iskale ilaahay u leeyahay. haddaad aragtid dad dhahayo dembigaa ku jirtaaye mar bay kaa dhacdeen marka kale ku dhaqso,
qofkaas ilaahay raxmadiisa uu ilaabay in allah yaghfiru dunuuba jamiica waxaan u baahannaha marka in jannada laga hadlo dabcan qur-aanka waa isku dheeli tiran yahay janno markuu ka hadla naaruu ka hadlaa naar markuu ka hadla jannou ka hadlaa balansigaas waa loo baahan yahay laakiin haddana inay dadka dhan cadaabka ilaahay iska yidhi xaaraan waay cadaabaa gale hada laysa min akhlaaqi nabiyi calayhi salatu wasalaam ma aha saas daraaddeeda jannada waddooyinkeeda markaad tagtaan waxaa weeye qofka markii loo sheegay abaalmarintiisa cunug iskuul muxuu dhigtaa muxuu jaamaca u bartaa maxaad dhakhtarnimo u barataa adiga adduunkada mana walilaahi masalu laclaa maxaad u barataa janno iyo waxbarasho oo business u gashaa waxaad rabtaa inaad successful noqotid adduunyada aad doonaysaa saas daraaddeed waxaa dhiirigelin ku ah cunug hadduu shahaado qaato inuu shaqo fiican helayo hadduu dhakhtar noqdo inuu dadka levelka soo gelaya waxaad ogaataa marka levelkaas ayaa ku dhiirigeliyay inuu hawshan qabto wax barto marka qofka salaadaha iyo cibaadada ilaahay waxaa ku dhiirigelinayo markaad ogaatid jannada qiimahay leedahay jannadaan ka bilaabayaa marka jannada sideeda luqadda carabiga waxaa la yidhaha kelimata jiin wa nuun markaa fiirisid aljiin wa nuun waxaa la yidhaha atasaturu fiiriya waxa iskharisoomay walaalika sumiyat ljannatu jannatan waxaa lagu magacaabay litasaturi ashaariha geedaheeda is asturay waa meel geedaha ka baxay aynay calaamahada isqabsadeen aynahan meel raaxo badanoo aan qorax ka soo gelayn qoraxda waxaa kaa celinayo geedaha laamahooda ayaaba qoraxda ma jirto maxaa yeelay laa shamsa fiiha ilaahi subxaana wuxuu leeyahay qofka jannada ku jira ma arkayaan uu yidhi laa shamsa walaa zamhariir qabowna ma jiro adag oo barafkaana ka cararaysaana ma jiro qoraxna ma jirto haddana janno saasaa la yidhi walaalika lafdiga juy inuu markaa fiirsan luqadda carabiga asxaabu luqada waxay yidhaahaan wax isdaboolay ayuu sheegayaan wax la daboolay walaalika sumiya aljaniinu janiinan cunuga caloosha ku jiro waxaa leeyahay litasaturi raxmi ummihi hooyadiisa uurta laheeda lagu qaaday wa sumiya almajnuuna majnuunan ninka jinniga qaba ma ahan jinniyaa gale ee sutira caqluhu caqligiisa ayaa daboolmay walaalika janna alleylu habeenkiyaa daboolmay asiyaamu junna waxba askaaga dhigtay walaalika jannada saasaa loogu magacaabay hadday saas tahay marka ay tahay oo magaceeda xataa uu yahay magac cajiib ah haddana magacyadeeda waxaa ka mid a daarusalaam ayaa la yidhaahaa waa daar ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay daaru nabadgelyo ilaahay subxana wataala fi suurat ancaam wuxuu leeyahay lahum daarusalaam ay leeyihiin daarusalaam maxaa lagu bixiyaa la yidhi leannaha waxaa la yidhi salaam ayaa ku jirto sumiyad maxaa yeelay waxaa la yidhi qofka badankiisa ayaa jirkiisa ayaa salaamo qaadanayo oo makruuh iyo cudur dadka kuma dhaco salaam waayo jannada dadka jooga ma kaadiyaan mana saxaroodaan salaam waayo waxaa la yidhi salaam ayay ku taho magacaas ayaa lagu bixiyo waxaa la yidhi nabad ayaa jirto halkaas ayaa lagu tilmaamay culamo kale waxay yidhaheen maya daarusalaam waxaa lagu tilmaamay waxaa la yidhaha daarullaahi ilaahay daartiisa wey walaalika adduunyadan ilaahay gaalada xataa wuu iska dharjiyey ayagoo ku kufriyey ayuu wax siiyey falamaa nusuu maa dukruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay xataa idaa farixuu bimaa uutuu akadnaahum baktatan fi idaa hum mublisuun adduunyada gaalku waxaa leeyahay markay ilaahay ku caasiyeen ilahay waa u furnoy adduunyan waa siinay laakiin jannada waxaa leeyahay daarullahi ali limaada min ilaahay magacyadiisa lagu tilmaamo assalaamu almu'minu almuhaymin asaga ayaa ahaa daarulilahna waxaa la yidhaha daarullaahi na waa la yidhaahaa ayay culammada yidhaaheen sidoo kale waxay yidhaahaan saas ma ahano waxaa leeyahay jannada waxaa la maqlaayo keliya waa salaam dadka isla jooga way salaamayaan leesma aflagaadaynayo leesma caynayo bal waa laysa salaamaya ilahay wuxuu leeyahay taxiyatuhum yowma alqiyaamati salaam weye markay isalaamayaan ee iska hor yimaadaan dadka ahlu jannada ah way isalaamayaan ayaga kaligooda maya malaa'igta markay u timaado wax ma weydiinayso camal la qoray ma laha shaqo ma jiro joob ma jiro oo lahay halkaas ka shaqay laakiin qofka raaxa ayuu ku jiraa keliya malaa'igtana waxay leedahay ilaahi subxana watacaala waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhi min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum waxay leeyihin nabad ayaa ahaatay waxaa adduunyadan kusoo sabarteen fa nicmu cuqba daar idan halkaas waxaa arkaysaa salaama ay ka dhacayso bal waxaa leeyahay ilaahay naftigiisa ilaahay jala wacala ahlu jannada waxaa leeyahay dayli uu salaamayaa salaaman qawlan min rabbi raxiim ilaahay qolkiisa oo salaam ay keliya arkayaan oo ah min rabbi raxiim ilaahaygaas rabbigaas oo naxariista badan ayaa jirta haddaad oga tahay marka meel saas ayna u socotid waxaa lagaa rabaa inaa u diyaar garowdo macnaheed waxaa ka mid ah leeyahay jannaatu sifaadkeeda waxaa ka mid ah ta'amulaadkeeda jannaatu lqurdi weeye waa lagu waarayaa meel aad weligaad ka soo baxayna ka waran
والغوار الله سبحانه وتعالى قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون إلهي سبحانه وتعالى هو دار وحال ليه خلدي وحال لغو معابد الرزق إذا ما دمانايو وحال لغيه بمانتا إنه تلاقي واللعت بيلك أموكاكوا أما وحاس كقولها جنة وحاس مجروا له إله سبحانه وتعالى وحليه عطاء غير مجدود وي إلهي بحنتيسا وحليه وحا كالقول له وي أي الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إلهي وحليه رزق كان الجنة كلها إنسان مثل ما أنا معها وحليه فواكه هذا لا مقطوعة فواكه كثيرة لا مقطوعة وحليه فواكه العنايو قطرواتك يعنبهني وحن أركيسان ولقد مدعايو بل وظل الممدود إلهي ليه هوس كذا نوحو كذا هذا وأسكت ما نايو أو حديث قالوا كل النبي عليه الصلاة والسلام نينك جيت كهركيس السعودة أفرتن سنة جيت كهركيس ورسعنا هل جيت كلية هركيس أيو لحسعنيا وحليلها جنات المأوى اللي مأوى عند سدرة المنتهى أي كنت الله يو إلهي يقول عندها جنة المأوى أو حلاليه أرواح الشهداء أسكله ويا وحله أسماء ذي وحاكمته سوى كله إن يتهي الفردوس نبي عليه الصلاة والسلام عليه فردوسة هذه فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس هذا جنة إلهي ويدسها إلهي جنة ديسة ويبضنتها ليري درجات كذا إلا يبقى جاريان هذا نوح الله عليه الصلاة والسلام فردوس ويدسها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وإلهي وحليه ذاتك عمل كونا سليمت جنات الفردوس محادعي لا يكون عنها حولا مرة بان إليك حولان كتغان نيك جب الفردوس قرا وحل ليه إيمان كرو ذاتك جنة الجوغ وأسبوقنا يناليه ذاتك درجة كور الجوغ أي ذاتك هوس إيمانيو لكن ذاتك درجة ذو هوستال كرمو كوري كران محايا إليه سبحانه وتعالى ننكستا درجة قار أيوسي وحاكم إذا جنة الصفات كهذا واسوقوا يا وقتك أيا اللي قول يريد وحاكم إذا سنو كلا وحكا السيلادة هاي مركي لغا الله يو حور عين إله القرآن كحور عين كحملي هذا شيء سؤال ويديه حور عين مركو ورا حور عين طبعا حور العين وحليلها حور كحليلها عندها قبلها عندها هذا وين وخيبت مذوقنا أي بلارنتاي خيبت عدنا أي جوكتا يا حور العين اللي يراها مركو وقروح للتلماموي قبلها سالقوا تلمامي لكن سؤال شيء ماشي ذاتك أي لكسونين وحيتاي horta wuxuu racaynta halkee ka yimaadeen ma haddayna joogaan jannadiisii joogaan in lagu sugayaan mase ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu racaynoo dhalanadana innaa inshaanaahuna inshaa'an ilahay wuxuu leeyahay markii jannada la galaa la abuuraya walidaalika culimmadu way isku khilaafeen waxay leeyihin wuxuu racaynta laba shayba waa iskugu khilaafeen waxay yidhihin horta wuxuu racaynta ma yihiin gabdhaha jannada ilaahay cusub oo abuurayo oo loogu talagalay in rag lagu abaalmariyo miya wuxuu racaynta mase waa gabdhaha saalixaadka ah oo mu'minaadku adduunyada joogaan markay dhintaan ilaahay uu nolol cusub u samaynayaa inshaa cusub loo samaynayaa ayaga xuur cayn naqanayo labadaas culimada isku khilaafeen mashhuurka waxa ah inay dad cusub ay yihiin laakiin ibn Abbas iyo culimo badan waxay qabaan ilaahay xataa ibn Qayyim kitaabkiisa arwaax wuxuu ku soo guulinayaa wuxuu leeyahay xuur caynta waa gab idinka weeye idinka laftigiina xuur cayn naqanaya la leeyahay maxaa yeelay khilaafka dam wuxuu dhacayaa haddii la yidhaaho xuuracaynta waa dumar kale cusub maxaa la leeyahay yaa falli badanaa la yidhi gabadha mu'minada oo adduunyada ilaahay caabid ku ahayd oo taqwadeed jannada gasha mayaa galaysa mayaa falli badan mas xuuracaynta kulligood qoladii yidhaaheen waxaa xuuracaynta waa dumar gaar oo markaas la abuurayo aan ahayn kuwa adduunyada qoladii tiri culamada waxay yidheen waxaa falli badan gabdhaha mu'minaadka ka falli badan idan xuuracayntan aa ka walwalaysaan gabdhood markuu hore ka baqayna idinka xuurayn naqda oo xuurayntina ka mid naqatid naqo maxay ilaahay wuxuu ku tilmaamay xuuraynta nashiga iyo qulqta lagu abuurayo curuban atraaban inay yihiin dad oo nimankooda jecel wuxuu ku tilmaamay ilaahay qaasiraatu tarfi inay yihiin ninkooda kaliya ma fiigan warnaa islaamta adduunya ninkeeda maana ninka aan fiiri jirin oo aan damac kale ku jiri karin ilaahay wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa caabidna ahayd ayada xuurayn naqanayso qaasiraatu tarfi inay ahaata asala waa naqa kartaa adiga halkaas waa gabdhaha waa naga karaan xuur cayn waxa ku soo haray ilaahay wuxuu leeyahay gabdhahaas waxay ku jiraan oo khiyaamay ku jiraan waxay ku jiraan oo leeyahay meel taanla la geliyay war gabadha asturan ee gurigeeda joogta oo ma aan wareegga badnayn oo aroosada tagaynin oo ilaahay ka baqayso xuur cayn halkaas ku naga kartaa waa gabadha khiyaamadka oo kale soo ku jirta weeye
سؤال شاذ مكان كقبحه سؤال كلا قبلها وريد الساجرة قبلها سؤال ويديسي شيخها سؤالها اللي ويدي كمتى waxay i tiri tifiga waxaad dhageysateen ma garanayo waxay tiri sheekhow ragga waxaa la yidhi 72 xuruur caynay helayaan oo dumara anaga 72 nin ma helayna ay tiri waasaas ay weydiisay waxaa laga yaabaa yurub ilmaha jooga gabdhaha jooga waxyaabaha saddex waxaa socota feminiisa socoto ragga iyo dumarka ilaahay subxaana wa tacaala waa asaa abuuray ilaahay subxaana wa tacaala alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir وقبلها وحي حمل كران أي حمل كران رجع وحي حمل كران قبلها حمل كران إلهي سبحانه وتعالى إلهي من ضيع عملك إلهي عجيز وقسم منا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ورنما إلهي وحي قيسون ورتنيا إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى إلهي ربي الدمر كما نجعله ننكسوا عمل ونرسل إلهي وأبا المرنا قبل مركز سؤالها ويدي قبل يا محاري أنت أدوي الجنة لقرين تيفيك وأنا يذكر تاريخ وعيرس صلواتي الله من أتقوها ياي هذا مكوا روسي ولا دويو آخرها قوت بيسن أعوذ بالله يتر صلواتي الله نتاقينا حقا مكوا هاي كرتير هذا دويو كوا هاي كرتير بس كذا هاو مشكورين أبدا وإله سبحانه وتعالى قف كسر وحوه اسمه تعالى كريم سؤال الله بعد إيتها ماشي كنت بتوعيتها ركبنا وحي كسر بيت حور عينتي إني صلواتي الله بهلا يعني نصوص الساس مشيقين نصوص وحي اللي ذاتك الله هايو صلواتي الله بدأ حور عينايو وشهادته ودفك شيء كل دول قولوا يا بدر كلنا شهادنا مرة طلباتي إلا بس من يدها كشري نسك مغبصو عراري ميزات كجد ويهين شهادته ذاتك عالقة إلهي سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين على قاعدين إلهي فضل عظيم وليه فضل قاسوا حكمه إن طلباتي إلا بالله السيائية ولو بعض ما نقدر بحاجة نفطه للدين تنوهرين لكن أذيبه هنا فضل السجن أما حديثك عليه فلكل رجل له زوجتان وليه لما دمر على الشيء رجعنا عادقة ودت كان شهادتها كل من لما حاسة نقنيتها ولذلك حاس كيس مؤمنة أهيد والدنيا ده هدي أي مؤمنين نقطوا إذا كو إذا كفل بناس ضدك كله مرك دمر هو حلا ده ناس إسك قادوا دلالة مرك هو سيحوا عندنا نقول نقطعوا الجنة أنا سلق الإله الجنة لما تهنيك عندك ليس لما أقصد مثلا كلام حيتاي إله سبحانه وتعالى وهو يفهم الجنة وبيو كذا هذلك وبيو لا سحولة بيو ويقع قاروا وحولة وعانو قاروا وحولة وخمري ولذة للشاربين ما نهار غير وحاول وان لما مذكون اسبدلين بي غير هاسن هو مذكون اسبدلين ايال مركي لقى الله يو مركي اللي بسنا يو حلية اللي بسنا اللي وحق عطنا يا جنة الله سبحانه وتعالى خدم الجهود قبل يوين الله كشقينا غلمانا كشقينا يو oo kaanoo lulu mansuur ah ay naftigooda qurxoon waa lagu adeegaya hoola lagu qabanaya aayada ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku sheegay xadiisada qaar kood wuxuu sheegay jannooyinka inay fara badan yihiin wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga asoo ka hadlaya aayadaha quraanka inay jannooyinka ay qaar kood ay afar janno ay yihiin oo min duuni ma jannataani laba janno ayuu kala saaray oo ah mid qoraysa mid labaha qoraysa iyo labaha ka hooseysa ayaa la sheegay qof kastana amalkiisa geynayo darajooyinka hadda sheegay dala ku kala tagay sidoo kale wuxuu noo sheegay nabi calayhi salaatu wasalaam inay albaabada jannada ayuu noo sheegay inay 8 yihiin 8 albaab janna jirtooyin hadda dad waxa jira sadaqada ku fiican maanta maskiin ala bixinaya qaraabada la bixinaya baabu sadaqay kaga laayaan daqad waxa jira soonka ku fiican khamiis iyo isniin oo sooma باب الريان وكجليا باب جهاد أياجرا باب الصلاة أياجرا قفها سنة بدن تكذا إذن إلهي سبحانه وتعالى عمل كاجا مضيعايو ما شاء الله هي أرك حوجي هذا صدقتك في عندها صدقة بدي وعلى يابا جنة الألباب كاسنك كشيد وصونك أكل ذاتي وعلى يابا صونك أنا في عندها صدقة أكل صونك بدي إسنين قميص شهر أيام البيت وحسن صون وعلى يابا صلاة أكل في عندها قيام الليل كبدي وصونك أكل ذاتي ولذلك هو رحمة الإله وواسع وي وبرنا أسنين عن أسنين إله سبحانه وتعالى جنة كما السينايو إله سبحانه وتعالى وحنو شاقي جنة بكينا قرأ إن ذلك اللي كلا صار الدونه أو كلا صار الدونه كوح لا قلوبك وحليه وصيغ الذين تقوا إله يبعون الزمر أيقوا كوح يا لكينيا ولذلك العلماء وحيثكوا خلافسين حديث ذلك كوح لا وضو كل ما أديهم وفد ولا شيء عيد كل حاجة تيني وفد أنا كنت جايان
wafdiga waa aragteen gaalada iyo madaxda iyo ma la wado baabuura lagu wadaa waxa lagu wadaa taraafiga hor socoto saas ayaa lagu ilaalinayaa dadkaas oo kale ayaa la qaadaya walaalka culimo qaarkood xadiis ayaa soo diraysan dhahayo awr ayaa la koraya meesha awr ayaa dadka zumarka markay ku socdaan waxay korayaan awr ayay korayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dadkaas si loo karaameeyo ayay noqonayaan sidoo kale waxaan nidhi jannadaas marka afarta ah oo kala qayb ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay labada koor wuxuu yidhi dawaataa afnaan fii suurati raxmaan arkaysa wuxuu leeyahay dawaataa afnaan waayo waxaa leeyahay geedaheeda laamo badan leeyihiin waa dadka sarreeya jannadooda oo wuxuu leeyahay caynta ku jirtana wuxuu leeyahay fiiha tan labaadna waxaa la leeyahay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlaya haddana webiyada iyo ilaha oo labada janno ay kala leeyihiin tan kor wuxuu leeyahay fiiha caynaani tajriyaani tan jannada koraysa waxay leeyahay webiyo laba webi oo soco laba cayn ama laba il oo ilaha ishi baydhabo kala ah ilaha waxa biyaha ka burqada oo biyaha ka socda waa soconayaan walaalka biyaha socdo meel kastay gaarayaan laakiin labada dambe oo min duunihima la yiri ilaahay wuxuu leeyahay fiihima caynaan nadaakhataani kuwa fawaar oo hal mar ay soo burinayaan waa istaagayaan haddana way soo baxayaan waa istaagayaan oo way burinayaan marka waxaa ka fadli badnaa leeyahay biyaha iska socdo ayuu ku tilmaamay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay jannada korayso faakiha oo dhan hataan qudrawaad dhan ayaa wuxuu leeyahay fiihima min kulli faakihatin zawjaan ay ka leedahay tan kale waxaa leeyahay rumaan iyo waxaa ku jira fiiha faakiha waxaa ku jira naqli iyo rumaana ku jira keliya marka sifaadkaas oo dhan adiga ayaa leeyahay falyatanaafasu almutanaafisuun jannadee rataa waxay ahayd inaan u tartarno war jannada firdowsi inaan galaa rabaa maya jannaatulcadniyaa rabaa maya jannaatu daarulmuqaamaa rabaa maya jannaatu sidqin ayaan rabaa waxaasoo dhan ayay tahay inaan ku tartarnay maaha inaan mar kasta aad taagnaatid meesha ugu hoosayso oo jannada ah oo qofka inuu u taagnaado maaha wuxuu leeyahay sidoo kale markaan ka hadlayna webiyada waan ka hadlayna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay nolol waxaa ku jira webiye aan la soo koobi karin oo aad iyo aad oo u fara badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay walahu fiiha min kulli thamaraatin xataa miraha la cunayo ayaa kala gedisanoo noocyo badan ayay kala leeyihiin ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale halkaan ugu sheegay waxaa laga hadlayaa jannada sariirta lagu seexanaya laga hadlaya sariirta ku seexanaysa sidee u taallaa waa aragteen sariiraha wadamadan way kala qaalisan yihiin ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay fiiha sururun marfuuca sariir oo waxaa leeyahay oo meel fog dheer meel dheer taag kasoo taagan ayuu ilaahi subxana wa taala ku tagaynaa wuxuu ku leeyahay muttakiina calaa sururin madfuufatin wazawajnahum bixuuri lciin wuxuu leeyahay firaashkeedu ku hadlaya waxaa ku firaashan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanka noogu sheegaya wuxuu ka hadlaya nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale oo nabiga ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka noogu sheegaya kitaabkii ibnu qayim soo kusoo guuriyey kitaabkii haadi alarwaax wuxuu leeyahay sariiraha kala duwan oo jannada darajooyinkoodu waa kala duwan yihiin mid qaarna waxaa weeye rafraf qudr cabqariin xisaan ayuu ku tilmaamay nuuc xuliyada ka mid ah qaarna wuxuu leeyahay maya nuucyadaas way ka baqaanaa oo yaaquud iyo murjaanka yaaquudka murjaanka waxaa la yidhi waa shay xataa dhagax haddii xataa lagu daboolaa la yidhi dhar lagu xiiro aftiinkooda waa arkayaa ayuu halkaas ku leeyahay waxaa la rabaa sheekhan waddadoo sheegay aniga waxaa nii ifii keliya wanaagga yaal lama soo koobi karo wallahi jannada waxaana uu qur-aanka sheegaya aayadaha qur-aanka iyo axaadiis sheegayaan lama soo koobi karo haddana nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam xataa adduunyo laguma mislay karo waxaa adduunyo raaxada halkaan taal ugu dambeeya jannada galayo waa nin cadaaba lasoo taabsiiyey oo dembiga laga soo dhaqay ayaa ilaahay subxana wa tacala noo imaa markii jannada la geeyey wuxuu leeyahay ilaahay ou jannada baxa la gal wuxuu leeyahay jannada waa buuxdaabe meelaa ka gala ma leh iska baxaa leeyahay tag markaasuu leeyahay waxaa leeyahay waxay dadkaas haastaan aa ku siinayaa midlagooda wixii la siinayaa ilaahay wuxuu leeyahay maalin ilaa iyo boqorada adduunyada raaxadooda ka badan lagu siinayaa hadday jannada saas tahay ikhwaani maadaa cadadta lahaa maxaa u diyaar garaysay su-aashaas howluu u qaata ka soo jawaaba nin kastoo jannadaas macaanka badan maxaa u diyaarisay subxaanaka allahuma waxamduka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullahi